Varsågoda. Förresten. Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Boqolaal qof oo u dhashay dalka Sweden iyo boqolaal kale oo ajnabi iyo Soomaali ah ayaa isugu yimid gogol tacsi loogu baroor diiqayay Allahu naxariistay marxuun Cabdiraxiin Muxyidiin Xaaji Xasan oo toddobaadkii hore ay dablay hubaysani ku weerareen gaari ay wateen magaalada Muqdisho isaga iyo haweeney ay ka wada tirsanaayeen xisbiga mucaaradka ee siyaasiga ah ee dalka Sweden. sidoo kale waxaa gogosha tacsida lagaga tacsiyeyay allaha u naxariistay wiilkii Soomaaliga ahaa ee ilaalada ahaa ee isna ku dhintay weerarkaasi. waxaana markii ay tacsidu dhamaatay gogosha tacsida ka hadlay madax ka tirsan xisbiyada siyaasadda dalka Sweden oo ugu horeeyay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Fenista Party loo yaqaano ee allaha u naxariistay uu ka geeriyooday Cabdiraxiin Xasan oo ka tirsanaa xisbigaasi. ولا واحد نشجع قدوميها حسبيها فينستر بارتيها أما هذا هذا وأنا نكمل هرتي النتاجن. Kära vänner, Husbybor, partikamrater. Vi samlas här för att hedra och för att minnas Abdi. ولا هذا قلت كان حافظة حسبي صحيح إذا حسبي هذا كله توي حسبي جا. لما dadka inta isku yimid halkan waxaan u nimid inaan maanta u baroordiiqno geeridii ku timid Abdi. waxa qasaarada kale oo dhabarjabka ku dhacay xisbiga Venisterka waliba qaybtiisa dhalinyarada shalayto waxa saf galay dad ka badan boqolaal ah oo dhalinyaro ah oo meel walba oo wadanka ah ka wada ooynahay oo intoodana ay ilaa garbahooda qoysay. hawshii uu qabanayayna waxay u wada arkeen inay ahayd hawsha ugu wanaagsan tii uu ka qabtay Sweden tii uu caalamka kale ka qabtay iyo waliba tii uu Soomaaliya ka qabtay. Abdi dog när han arbetade för vårt parti. Det är någonting mycket ovanligt. Abdi waxa uu ka tagay waa xisbigeena hawsha waxay garbaha ka saaran tahayna waa xisbigeena arintana waa arin aad iyo aad noogu culus aad noogu muhiim ah. marka waxaan soo sameeynay gole ama waxaan u sameeynay dhigaal oo Cabdi leeyahay oo Cabdi loogu magac daray sanad walba waqtigan oo kale tan waxaan isku wada arki doonaa waxaan siin doonaa abaalmarin qofka sida Cabdi oo kale u dadaalay oo mutaystay inaan siin abaalmarintaas. Vi ska fortsätta solidariteten med Somalia för frihet, för demokrati och utveckling. dareenkeena Soomaaliya u dirayna inay hesho xornimo iyo waliba deganaan iyo xasilooni taasoo ka meel dhalinayna. sidoo kalena waxaa gogosha tacsida ka hadlay dhalinyaro Soomaali ah iyo qaar kale oo ka tirsanaa xisbiyada siyaasadda dalkan Sweden. waxaana ugu dambeyntii ka hadlay gudoomiyihii hore xisbiga oo si aad ay isugu dhawaayeen saaxiibana ahaayeen marxuun Cabdiraxiin oo haatan ka tirsan golaha sare xisbiga ee Cabdiraxiin uu ka tirsanaa. Så den nyckelfrågan vi ska få ordning på den världen som Abdi såg kanske mer än någon annan var att då måste man ha samma rättigheter, samma möjligheter för människor som växer upp här och som växer upp där. Och han såg till att också organisera det. En av de sista Facebook-uppdateringarna berättade han om när han var i Mogadishu och värvade 40-50 personer till det projekt som han jobbar med där nere. Och så var han organiserade där, han organiserade här och han knöt samman den här världen som är alldeles uppdelad. waxa weeyaan Cabdi nin dadaal badan buu ahaa hawlihii halkan uu ka waday ayuu geeyay dhulkii Soomaaliya 40 ilaa 45 qof oo dhalinyaro ayuu isku xiray wuxuu rabay maaragtay inuu isbedel muuqda sameeyo. dad badan ayaa isku day sameeyay isku dayga uu Cabdi sameeyay maaragtay ama Cabdi sidoo wax u sameeyay iyo dadku sidoo wax u sameeyaan ismalaha. Cabdi wuxuu jeclaa wixii halkan yaalay iyo wixii xaq jiray aqoontiisii iyo inuu isku xiro baahida. Nu är han inte finns hos oss längre. Så är det förstås en jättestor förlust framförallt för hans familj och hans vänner, hans nära vänner. maantay nalama joogo runtii waxa weeye maaragtay xanuun badan ay nagu haysaa dhammaanteen si gaar ah qoyskiisii iyo saaxiibadiis. run ahaantii Cabdi waxaan aqaanay ilaa iyo markii uu jiray 3 sano. ilaa
maalinkan maanta ah dad iska warqaba oo family ah baan ahayn ilaa 4 sano ayaan quraanka u dhigi jiray isaga iyo Ilyas nabiguna sallallahu alayhi wasallam uu inoo diiday inaynu oyno waxa loo baahan yahay inaynu ku waana qaadano oo aynu ogaano qof walba halka aynu u dambaynayo marka cibaado la kordhiyo ayaa loo baahan yahay oo in wax ma soo celinayso cabdin qaaliya iyo sida dhammaan dadkii halkan ka hadlay tacsida ka waramay waxa ay sheegeen nuuca uu ahaa Cabdiraxiin Allah u naxariista waxaanay ka bixiyeen muuqaal iyo taariikh cajiib leh marka shakhsiyan laga hadlay isaga sidoo kale xisbiga uu ka tirsanaa madaxdii ugu sarsareysay ayaa halkan ka hadashay kuwa aad ugu dhadhawaa oo xisbiga ka mid ahaa ayaa iyagana sheegay hawshii uu qaban jiray iyo nuuca uu ahaa laakiin dadka Soomaalida ee ku nool Soomaaliya gudaheeda iyo dawladda Soomaaliya waxaad moodaa inaanay u aqoonin sida loo sheegay halkan maanta looga cadeeyay Cabdiraxiin shakhsigu ahaa marka loo eego sida ay warbaahinta iyo saxaafadda Soomaalidu u soo bandhigeen meelaha qaarkood iyo website-yada iyo idaacadaha kulligood waxa lagu soo qoray Cabdiraxiin oo ahaa darawalka gaariga laakiin ma ahayn Cabdiraxiin darawal oo kaliya waxa uu ahaa shakhsi leh fikrad aad u fog oo ka turjumayay Soomaalinimada doonayna wadankiisa inuu isbedel ka sameeyo waxa uu ahaa aqoonyahan wax ku bartay dalkan Sweden kana mid ahaa xisbiga Fenesta Party loo yaqaano garabka bidix ee siyaasadda dalkan Sweden Cabdirasaaq Socoto warbaahinta qaranka Soomaaliyeed caasimadda dalka Sweden Stockholm